mulka macallimiinta ardayda labada iskuul ee facaweyn ee 21 October iyo 20 December waxaan idinku salaamaa mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan rabnaa inaan bowsiino fariinteenna way kooban tahay waxaa idiin sidno waxaan rabnaa inaan gaarsiino dhammaan dugsiyada sare dhexe hoose ee gobolka Banaadir ku yaalo waxaan rabnaa dhammaan ardayda gobolka Banaadir in ay ka qayb qaataan gurmadka iyo taakuleenta loo fidinayo walaalaha Turkiga ee saameeyeen dhulgariirkii dhacay maxaa keenayo sababta ah in arday Soomaaliyeed loogu yimaado oo taakuleen iyo gurmad loo weydiisto waa fududahay jawaabtu waxaad ogtihiin dadka waxyeeloobay ee dhimanayo waaridkooda dhimanayaan ama guryaha ku soo dumayaan waxa ugu badnaa caruur nambarkii ugu badnaa oo caruureed ayaa agoomoobay nambarkii ugu badnaa caruur ayaa dhintay annaga sababaha ugu horeeya hortana laga rabo gurmadka iyo shucuurteen inaan u muujino waxay tahay walaalo anaga nala mid ah oo mustaqbalka aan lahayn oo kala lahaa weliba mustaqbalkoodii maantay waaridkoodii ayakiiba ku soo gabagabo dhulgariirka ayaa jiro qodobka labaad oo ugu muhiimsanna waxay tahay ardayda Soomaaliyeed oo dhan mustaqbalkoodii waxbarasho iyo meeshii ugu badneed oo noloshoodii dib u kabtay ama fursado shaqo ha noqoto ama fursado waxbarasho ha noqoto ka heleen waxay noqdeen walaalaha dalka Turkiga nambarka ugu badan ee dalka Turkiga joogo marka laga soo tago inay qoysas iyo dad shacab oo ganacsato yihiin waxa ugu badan ardayda Soomaaliyeed haddii ardayda Soomaaliyeed la sheegana waxa ardayda Soomaaliyeed 70% ka nahnay ardayda gobolka Banaadir ayaa 70% ka ah gurmadka la fidinayo iyo taakuleenta la fidinayo waa la kala qaybsaday bahda waxbarashada Soomaaliyeed waxa ku soo aaday 100,000 oo dollar laakiin bahdaas waxbarashada gobolka Banaadir waxay ka yihiin 70% waad aragteen minxooyinka waxbarasho waad aragteen adeegyada waxbarasho la bixinayo dhan waxa nagu soo aaday 70% si la mid ah qaaraankaas lagu soo qoray bahda waxbarashada oo soo qaaday wasiir Faarax waxaana laga rabaa in anagana 70% gurmad la mid ah fidino gurmadkaas dhaqaale kaliya ma ahan waxa kamid ah inaan u duceeyno waxa kamid ah inaan shucuurteena muujino waxa kamid ah inaan ka xanuunsanahay inaan dareensiino walaalaheen xilligan ka adagna nolosheena waxbarashadeena iyo dalkeen oo burbur ku jiro ay noo soo gurmadeen walaalaheen Turkiga si la mid ah maanta waxa la rabaa wadanka ugu badan oo qolo walba oo bulshada ka tirsan ee u muujiyaan dareen inaan noqono anaga xoolo kaliya wax ma taraan حتى waxaad darto faatixadiina waxaad darto inaad wax sameysaan oo shucuur ku muujinaysaan oo 10 arday 20 ardo ee calaamadihii Turkiga iyo wax la mid ah inay ka xooyihiin muujiyaan marka waxaan rabnaa fariinteena naloo soo dhiibay oo inaan ka qayb qaadano gurmadka ah oo ilaa jaamacadaha gaari doonto ilaa dhammaan iskuulada gobolka Banaadir ku yaalo oo tiradoodu dhan tahay 700 u dhow 690 iskuul ah ayaan rabnaa inaan fariinta gaarsiino laakiin waxa ku faraxsanaanay inaan fariinteena maanta ku furfurnay ama ku bilaawno ololaheeni labada iskuul ee dariska ah oo ardaydu isku meel joogan waxaan ka rajaynaynaa gurmadkiina iyo taakuleentiina inaan aragno dhammaan akoonada lacagta lagu diraayo waxay yaalaan Facebooka waxaan dhajin doonaa waraaqad yar oo inta ku taalo oo lacagtaas iyo akoonadeeda $1 waxbay tartaa $1 waxbuu taraa maalintii oo wax dhaceen maalmihii ku xigay dalalkii ugu horeeyay oo gurmanayay kama aysan gaari karin in lacag baxshaan waxa ay sameeyeen in xataa dhar soo qaadaan cunno soo qaadaan maxaa yeelay walaalka dhibaataysan qofka ugu soo horeeyo soo gaari karo wax walba oo kula soo gaaro abaal uga hayaa annaga nala sugaa inkastoo gadaal ka daahnay laakiin annaga nala sugaa bahda waxbarashada gobolka Banaadir inta fariin ayaan uga direynaa waxaan codsanaynaa inaan wax walba oo la heli karo dhayalsan wax walba oo la bixi karo la baxsho sadaqadu yareeysi ma lahan galgaceelka iyo walaaltinimada ku jira ka badan wax kasto iskuulka awoodo waa ognahay iskuulka inuu yahay iskuul public ah oo dad duruufo gaar ah dhigtaan ku nool dhigtaan laakiin still waxa laga rabaa gurmad still waxa laga rabaa taakuleen biri ka maalin markay musiibana qabsato dadkii noo soo hiili lahaa waa walaalaheen Turkiga annagana waxaana laga rabaa inaan muujino aad ayaa u maasantihiin waxaan codsanahay inaan faataxa ku soo gabagabeeno oo walaalaheen faataxa u akhrino aad u maasantihiin